هارون الرشيد وحوها دولة العباسية حل جذيبها وحربنا وقرن قل بعض مدحيسي waxa uu yimid nin dhakhtar oo Roomana nin dhakhtar oo cadaan ah uu yimid markaasuu la kaftamo wuxuu ayuhal malik boqor buu ku yahay quraankiina waan eego cilm al adyan buu ka waramaaye cilm al abdan kama warama buu cilm al abdan waa dhakhtarnimada quraanku wuxuu ka waramaa buu markaan dhageystay al adyan bas aakhirada jannada shariicada ahkaamta salaada zakada hajka waxaan buu ka waramaa buu quraankiina laakiin dhakhtarnimada kama warama buu quraankiina هارون الرشيد ayaa yiri Allah u naxariistee aayad barkeed ayaa ilaahay cilmiga dhakhtarnimada oo dhan uu kaga waramay buu aayad barkeed iska daa aayad dhamaystiranay waa aayade kulu washrabu wala tusrifu inna Allaha la yuhibbul musrifin innahu la yuhibbul musrifin kulu unaba ilaahay cuntada washrabu abba wala tusrifu laakiin ha ku israafina ba ilaahay yiri aayadii baa loo sharxo loo macneeyay ninkii dhakhtarka wuxuu yiri wallahi waa run buu quraanku hadaa waxba kama tagin buu waxba quraanku ma reebin ba waxaan anagu aan dhakhtarnimada aan ku gaadhnay buu aqoon oo xaqiiqadii aan soo taabanay xanuunada bini aadanka qabto oo dhan waxay ka bilaamaan caloosha ka bilaamaan ma malaa ibnu aadam ba nabigu yahay wa'an asharru min badnihi ba nabigu ina aadan mabuuxin wal ka shar badan calooshiisa haddii uu kama maarmaysaan cunto buu nabigu yiri oo kulli cunto iyo acab kama maarmaysaan in yaro dhabarkaad ku tiirisaan cuna buu nabigu yiriyo calooshiina saddex u qaybiya qaybna biyaha ugu talagala qaybna cunnada ugu talagala qaybna nafaska ugu talagala iyo hawada nin caraba ayaa la sheegay oo maaragtaan diinta islaamka aad aan u aqoonin oo carabta iska cilmaaniyiintaaya laakiin muslima dhakhtar buu u tagay wadanka Germany xanuunadiisa markii la baaray ee checking lagu sameeyay waxaa la ogaaday inuu xanuunkiisan dhanba uu ka bilaamayo caloosha marka ninkii dhakhtarka ahaa ku yiri carabiyada ma taqaan luqada carabiga ha waan aqaana akhriso buu ka yiri maaragtaanay waa ninka professorka Jarmalkuna waa wadanka adduunka dhakhtarnimada ugu horumarsan baa la yiri professor dan ayaa kula eeg buu halka akhriso luqada carabiga hadda taqaan markaas waxa ku qoran ila qaal nabiy oran maayaane قال دكتور محمد بيد هذا مركز طبيب محمد وحويري إن آذن مبوحن والكسر بدن علوشيسا حديث كان أنا أخريه نبو أخريه مركب أبو نكي أصورتي مركو مساجدي مدي أيو دتي ويديو كويري ورنختار كان عربتا كدنا شيء إيه دختار هذا الدوية أوجو قيمة بدن أوجو قالسا أوجو قام بدن حفيسة ده إريادي سأكو قرتين إن أنكو عرب أنقر الله نهوا كما مركز سالقولي بل إريادا سوق قرتين نتص حديث النبي جو أخريي مرقاس على يقول يا جاهل مركب ما النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام آيات قروا يدي بقول قول كيس والله اخترضوا ما أنت أدونك اخترضوا ويبتين هسبتال لدنا ويبتين داودنا ويبدتي بكانكم مو يرانا يا مسوون بيريا بليش يا وزيد زيادة كنت سنكور سيديت سنكور وحلا جاي مقالة بعدين إلا مقل جري وده هبل يلعب حنوسنا هاللو دعيو ما أنت أقل والبو حلا جاي أبا حطيت الضبوق في كل شيء شن باب بقطع حنوسا مركز دكتور ردي خاتيان بالله بين نقدين دودينا غش بين نقطة غش لا بقول غش كشغيا وقنا ستة الراشقة كانت الراشقة كان يانا والراشق كيميكال واحد نوع كينان قلت الدودة كين سنة دو صح ما بكينان با إلا من رحم ربي ده دكتور ردي ويدالين مركز دتك كلها تلي الله بشيء وعيوني عنتدنا اسكيره صعد كنا بتصدق magaalooyinka caasimadaha adduunka waxaad arkaysaa ganacsatada iyo tujaarta iyo madaxdii wadayaacay sida dumarkoodii reemiga ka warrama reemiga orad muu baahan yahay war muu baahan yahay iyo caafimaad badan reem magaalka caafimaad badan mise reem baadiya maxay ku caafimaad bateen waa labadaas sifay leeyihiin cunto yar iyo socod badan bay leeyihiin shaqo badan bay leeyihiin waxaa la ogaaday nolosha dabiiciga in loo noqdo mooyaane noloshan adduunyadaan leenahay waa horumar oo gaadhigaagii baa isfuraya oo aqalgaagii baa isfuraya oo sariirtaadii baa islaalaabaysa oo diyaaradii baad caalamka meel walba ku geynaysa oo adduunka maqal iyo muuqaal baad kula xidhiidhaysa
وزوم باشرك الله قلاي والله هرومر اللي ليه هرومر كي جارين ما كورونا سكي علينا كورونا إلى هاي قصة اللي دون دغالو إلى هاي دول كوجليه وفساد كله وريجين اللي أدب سماي وقلنا فريسته زنا دي يفسق إلى وريجين تورستو أقل دول إلى هاي فريسيه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا مركز نقدر دعير والطبيعي حنون كان وحنون طبيعي عمل الذي بحماتيو ماركتان كيميكال كي أدوية أيا قبصديو لأن حنون نحن بدلنا طبيعي ما واحد طبيعي مجران وحولب وآيات إلهي ويان وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لذلك ولا ليال رجوع إلى الإسلام ما أنت الزمن كان جوغنا حل كلا مجرى إلا دين الله صلى نقدم ويان قال ذي دتكو عند دبس السعودين أي دربي ماذا حقول لفاتي قال ذي بقول إله النوبرية فأكيد هذا كورونا دوكا ككلا قيلسية نن تلياني جوا حال الشيء إنه يدي أودي يدور كوارد ماتي أودي سماه وبحر يقولي الله وقال كيف أصدق كله وسلقينا وعقولين مساجد حدا صلاتنا كلا ديرادا قرآن كان هتابننا لا إله إلا الله والكافر يقول إله النوبرية قال كيف أقول إله النوبرية مسلم كانوا يقولون إلهي كفوا هذا حقا نصعنا مركز ففروا إلى الله إخواني وحن إلهي أنا قلنا نفسي إذا كل إلهي حقي سأل الله يعو مالك لما جرت مات دينتي أنا هنبرنو دينتي أنا هنقبصنو دينتي أنا هنكون نغنو إخلاص ضد مخلصين هنغنو مخلص ومحي والأمد هداد واحتر إلهي درتي وحتر هداد مع القبين تهي دقالها أمد وحقتر هداد عالم تهي علمك ومدى وحقوتر هداد مسؤول تهي مسؤولية اللغو صار ماها حلق أقل هدسان يسي وحلق ومدى أدو هذيك يسي لذلك أبي بكر الصديق رضي الله عنه مركي خلافة اللو ديبي أنصاري مهاجرين أمي ديي صدح مع الموضوع ومنبر كان تكون نقضى أيولها أما نديني ونيسو عليا نكا لو ديبتا مركي أبي صحابة لها ينمي أذان نوغو خير بدن أذان نوغو خير بدن عد كان متيستي إمارات مجرت بيكون هذين وايو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو نول أو نفط أي كون جرتا نبي قال له الصلاة دي بتاعن مركب النبي يقول أبو بكر وش قدرت الصلاة ده حكب بحياه مركب الصحابة لين أبو بكر ما دام عمل آخر هذه إن أنفع يا أدق الإمام نوغن نقطي نبي محمد أو نول الإمام نوغن نقطينا أدوية هذه ما أنت هذه قم بنوها جكرا والله سدا هذي أمة مسلمة قول أي دون يسوع نمبرنك وكأل كعبس بدن يهاي بطلاد ودي باللهين نمبرنك وكسلات في عين يهاي نمبرنك وكذكر بدن يهاي نمبرنك وإلهي وقدو يهاي أيا لو لها كابا إن بدبادين يتلاد إنه ودي با زمان كانوا ودادا كلا ديرادا ودادا هي ودادا مسكيت كفرديه إنكم مسكيت واي فرديه المساجد ودادو لكن هذا حاجة وصعتها قال دينا كاهر تمدد نظام كي قال دول أدوم كشقين وا حاجة وصعتها مركا رجوع إلى الله إلهي حقي سانوس ونغنى دينتنا كشقينه ودتكنا هندسنه وما دا إلا دسال لو باهي هي ومدالا ودوينك غوغوان ودوينك هدا اسكا غوغوان يهين معنى مله هدا ددكو انو هغاغان oo dhalinyaradeennu wiilal iyo gabdhaba ilaahay xaqiisa u noqdaan oo dhalinyaradu masaajida inoo camiraan oo gabdhuhuna muxajabaad asuran ay noo noqdaan oo ganacsatadeennuna ay dhaqaalahooga masaajida ku dhisaan madaarista iyo macallimiinta ku nafaqeeyaan yaa ilaahay dartii ay dhaqaalahooga u bixiyaan oo zakadana ducafada iyo fuqarada ay siiyaan horumarku waa taas ku dhismaynaa ugu haddii wadanku xataa sidaa iska ahaado laakiin dadku ay ilaahay u soo noqdaan oo ilaahay ka baqaan wallahi waan liibane ogaada laakiin haddii wadanka la dhiso hoteello waaweyn laga dhiso wadooyinka la wada dhiso dhakhtarro casriya la keeno eraboorro laynoo sameeyo wadanka dekada laga wada sameeyo oo dadku wada mooriyaan noqdaan ka warrama dalka warrama ما هرمرني معي ورمضها لجود دالو دعوة waa maxay marka dacwad الدعوة إلى الله dadka xaq ilaahay aan ugu yeedhno dadka diinta ha ku baraarujino dadka diinta ha barna waxay ka dhigan tahay dadka ha dhisno dadka in la dhiso ayaa awlaayay mise dhulka in la dhiso baliga jawaaba nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wassalam wakilaha uridat alayya badha makkah la ii bandhigay buu nabigu dahab in la iga dhigo markaas ay yaa rabbi ma doona iga daa adduunyadu waa laba maalmood maalina waan gaajoon
maalintaan gaajoodana waan ku weydiisan maalintaan dhargana waan kugu mahadin uu diiday nebigu adduunyada calayhi salaatu wasalaam nebigu inuu dadka hagaajiyo dadku uu hagaajiyey ilaa qiyaamaha waxay yihiin example lagu dayday yihiin iska daa muslimkiiye wallaahi gaaladiibaa markay siiradii cumar ibnu khataab akhristeen waxay yidhahdeen ninkaasi hadduu mar labaad adduunka iman lahaa mashkiladda caalamka taalla isagoon baa xallin lahaa bay yidhahdeen gaaladu cumar faaruq radia allahu canhu